jiray 25 sano ka hor nin ay hooyada ishukaasa jireen oo haddana anoo iqaba caruura oo dhalay say ku dhacay marka say u dhali kartaa ilmo ma ayada gabadhan hooyadu qiyaantay oo hooyada ninka ka hoos kaansatay qisadaas rabnaa ayadoo dhameystiran in gabadhan nala wadaagto assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asxaabtu waa idin salaamay xilbu muuqaal kusoo gaara wanaagsan haddii maalintaa maalin wanaagsan haddii habeentaa wanaagsan waxaan kaa codsanaa haddii taa marka u kaa muuqaalkeena aad daawatid inaad pageka follow noo soo dhaahid sidoo kalena youtube-ka subscribe noo saartid muuqaalkan like noo saartid maanta waxaan sameynaynaa barnaamijkeena qiso qeybtiisii 19aad waxaan nala joogo gabar rabtana barnaamijka inay ka qayb gasho waxaa jirtay 25 sano ka hor nin ay hooyada ishukaansa jireen way kala dhumeen ninkiina wuxuu u qaxay hooyada waxay u qaxday gobol ninkiina wuxuu aaday Yurub meelaha qax maxaa keenay qaxa waxaa dhacay dagaalo kadibna ninkii Yurub oo aaday hooyadayna gobol ay u qaxday markii dagaalada dhaceen cunug ayaa hooyaday dhaawac ka soo gaaray wiila marka waxaa dhahay hooyo anaka ma ku caawin karno shacabka Soomaaliyeed oo ku caawin karo fiidiyoo ka duweyna saas awgeed waa lagu soo caawinaa ay dhaheen fiidiyoogi waxaa arkay adeerka jooga Yurub waxaa ku jira hooyaday wajigeeda iyo wiilkii la dhashtay iyo lambarkeeda oo meesha lagu soo qoray waxaa aqoonsaday adeerkii hooyo mar hore ay kala dhumeen markaas wuxuu soo wacay lambarkii meesha uu ku qornaa kadib markuu soo wacay way sheekaysteen wuxuu dhahay ma nooleed inaad dhimatay oo maleynay marna waa naxay marna waa farxay oo dhahay waa noolaa ay dhahday markii waxaan isku waynay dagaaladii adiga intee ku dambeysay ay dhahday hooyo wuxuu yiri abaayo ani waa joogay Yurub aan aaday adiga intee joogtaa Muqdisho mise meel kale okay Muqdisho jooga aboo wiil yaraan iga xanuunsan ay dhahday hooyo wuxuu dhahay adeer markii dambe wax alaala waxa rabtid anaa ku soo siinayo wiilkaas ha laga bixiyo fiidiyoogaas daawada ku bixis anaa bixinayo ha laga saaro fiidiyoogaas oo dhahay adeer walaalkay qaali waa laga saaraya wiilish fiidiyooga iga duween ay raadina ay dhahday hooyo way sheekaysteen waxay ku sheekaysteen adiga ma guursatay haa walaal waa guursaday ilma ayaa ii jooga ee ku dhahday hooyo waxay markay ayada dhahday ma guursatay mayo dhahay ma guursanin wali sideeda ahay waay gabar adigoo kale ee qanciso adduunka kama ba arkin oo dhahay asigana hooyo way naxday waxay niyada ka dhahday adiga ma guursan kartid maxaa sameeysaa ee niyada iska dhahday hooyo waxay dhahday walaal gabar ayaa ii joogta oo aniga ii eg gabadhaas hadaan ku siiyo ka waran aan kuugu abaalgudo gabadha maamada sheegay leedahay waa ku siinaa adeerka yaa gabadha aniga waaye sheekada aan hadda kaaga sheekeynayo hooyo iiga sheekaysay waxayna dhahday ninkaas oo ku siinaa hal maxaa sameeyay ana waxa sameyn karin ma qaadan karin ninka hooyo isiisa nin ayaa ayada ogeena ay qabay waxaan ku iray hooyo ninkaadi isiisa waan guursanayaa ducadaada waan qaadanaa inaaba ku qabee seerin lagu siinaa marka balse hooyaday ma ogeen aniga inuu nin i qabo oo ii qarsanaa si qarsoodi ugu qaba ninkaas kabacdi maxaa dhacay maxaa sameeyay xilliga ay rabtay hooyo inay ninka ay isiiso guriga waan ka tagay ninka gurigooda aaday ninkii yaa la baxsaday ninka ala baxsatay ninkee waa ninka ani i qabay waa oo qarsoodi ugu qabay aa la baxsaday telefoonadana waa iska dabiyay hooyana meel ay iga soo raadisay weysay markii dambe sidii ku aamustay marka ay hooyo meel ka soo caday weysay telefoonada aad disatay maxaa dhacay marka waxaan soo maqnaa 6 bilood oon ka tagay guriga hooyadeeda waxaan ku maqnaa ninkii qaba gurigiisa waa isa soo dagaalnay waan ka soo tagay gurigiisa kadib waxaan aaday guriga hooyadeeda oo saasa hooyadeeda ugu imaaday hadda guriga hooyadeeda jooga waxa ka soo guriga ninka ku qabay waxa imaatay guriga hooyada hooyo maxay ku timir hooyo waa beer wax dhalay waxba ima dhihin iguma qaylinin marka waxay dhahday hooyo ninkii aa iiga tagtay aaway ma ka soo tagtay ma kala tagteen ay dhahday ana waxaa yiri maya iri hooyo imuusan furin kabacdi maxaa dhacay marka bacdi hooyo waxay dhahday hooyo hadda ninka ma rabtaa ma kugu celiyaa mise ma ka furaa ay dhahday ana hooyo ma rabiyaa ninkii iga fur maxaa saas markaa ninkii aa la iga furay kadib hooyo waxay dhahday hooyo gurigaaga iska joog waxaadan adin rabin aniga kugu maqasbaayo igu tiri sidii aan guriga ku joogay guriga maanta ku soo laabatay waxaan noqotay qof guriga tirsan kabacdi maxaa dhacay marka hooyo markii dambe markaa isfahanay muddo guriga joogay 6 bil kadib waxay tiri hooyo miyaha ani hadda adi ahaan la booskaaga waa buuxi lahaa taladaana ku soo bandhigay ninkii ahaa adeerkaaga aan rabaa inaad guursatid ana hadalkeeda ma diidin hooyo hayaan ku dhahay adeerkii yaa la bacay waxaan leeyahay gabadha garoob waaye way ku rabtaa
adna ma rabtaa alday wuxuu yiri adeerkii gabara adiga aa dhashay waxay ahaataba waa ku qanacsanahay ma binici kari waa ku qaadanaya oo dhahay asigana marka hooyo waxay tiri goorma isku imaanayna asigana wuxuu dhahay sanadkaana dhamaan rabo sanadka markuu dhamaado adii gabadha isa soo raaca Kenya igu imaado ana wixiina nii soo diray waa ka tagteen xamar saa sheegtay waxa tagteen Kenya markii la tagay maxaa dhacay Kenya markaa tagnay ka bacdi hooyo waxaa la siiyay lacagta sooriyada iyo wixii dhan la siiyay aroos qurux badan oo ay dhigay 3 maalin kadib hooyo waxay ugu tiri hooyo ninkaan ku qanacsan tahay waxaan ku iri hooyo waa ku qanacsanahay kadib hooyo way iga soo tagtay asigana uu baxay wadankiisa u laabtay anna waxaa imaaday wadankii aan ku soo noqday anoo walaac guriga hooyo imaaday haddana waxaa sidaa ay ugu joogtay gabadha hadda ii joogtan ani hooyaday ugu magac daray hooyaday ku magacta haday gabar tahay waxa u bixisaa magac hooyaday oo tahay Firdawso oo maadi hooyada ku dhashay ama asaga hooyis ani hooyaday dhashay waaye yaa ku dhax marka maatar ninkii qabaa ay dhahay hooyada ugu magac dar sababtoo kala maxaa marka sababtoo ay tahay hooyaday oo xushmeenahay marka horena oo ay shukaansan jiray hadan gabadheeda oo guursaday xushmad oo hooyaday oo u haaya darteeda u dhahay hooyo ugu soo gabadha